inaad noqoto qof la jecel yahay kuma xirno qurux badan, lacag iyo waxyaalo la mid ah inaad lahaato, balse waxaa jira arrimo kale oo haddaad ku dhaqanto ku kasbanaysid jacaylka dadka. qof kastoo kula kulmana ou rajaynayo mar walba inuu kula kulmi lahaa. haddaba maanta waxaan kula wadaagayaa 4 arrimood oo ka mid ah arrimahaas oo aan u arko kuwa ugu muhiimsan inay yihiin. ta koowaad waxa weeye qof naftiisa jecel oo ku kalsoon inaad noqoto, waayo sidee baad u rajayn in lagu jeclaado adoona naftaada qiimaynayn? markaan ku leeyahay sidaas, ha moodin inaan kugu dhiirigelinayo mid isla weyn oo naftiisa un maahine mid kale aanan arkayn inaad noqoto. maya, balse keliya waxaan kugu boorinayaa inaad sida aad tahay iyo cidda aad tahay raalli aad ka noqoto. haddii aad tahay mid xumaan isku og, inaad ku dadaasho weeyi sida aad u dayn lahayd, waayo naftaada inaad jeclaato ma dhacayso la'aantii. mar walbo xasuusato xumaantaas inaad ku sugan tahay, naftaadii baad nacaysaa. 2. qof dhaqan wanaag lagu yaqaano noqo. waxyaalaha ugu muhiimsan ee dhaqankaaga wanaajin kara waxaa ka mid ah ixtiraan iyo qadarin inaad dadka kula dhaqanto. qof kastoo kaa soo horbaxa inaad ku salaanto salaanta sharciga adoo islamarkaana weji furan iyo dhoola caddayn kala hortagaya. nabigeennu sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi: awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum. ma idiin tilmaamaa shay haddii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan, salaanta dhexdiina ku faafiya. 3. isla weyni iska ilaali oo mar walba hoos isku dhig. faanka iyo is-ammaanka badan ka fogow, waayo qofna ma jecla qofka kibirka badan. ilaahayna subxaanahu wa tacaala ma jecla. ina allaha laa yuxibu kulla mukhtaalin fakhuur. arrinka 4 ee dadka ku jeclaysiinaya waa qof diin leh oo ilaahay xiriir wanaagsan la leh inaad noqoto. ilaahay hadduu ku jeclaadana ogow dadkuna way ku jeclaanayaan. ugu dambayn, waxaad ogaataa si kastoo u wanaagsan tahay qof kasta inuu ku jeclaado qasab ma ahin, waayo cadow iyo xaasid ma dhammaadaan. nebi muxamedba sallallahu calayhi wasallam cadow iyo xaasid kama badbaadin. muuqaalku hadduu ku cajabiyey, like-ta saar. haddii aad channelka ku cusub tahayna ku soo biir, asxaabtaana muuqaalka la wadaag. muuqaal damboo ku kulanno. wassalaamu calaykum.